ninka la yiraahdo xasan sheekh wuxuu soo wacay goor maaragtay subax ah oo adiga 4 saac meelahaas ay ku abaarneed muddo dheer ay ahayd xoogaa waa iska hilmaamay markaas wuxuu yiri waxaan rabaa niman ku soo diraya generaal ninkaas la kulan waxaan rabaa dhulkaas 100 lagu dhuftay 100 aan ka siinaya inaad ciidanka ku jira iyo dadka ku jirana ka fududaydo ka gacan siido ciidanka aan ku wareejido nimankaas saraakiisha aad ku gacan siido inaad maadaama xaafadana aad degan tahay odayna ka tahay ciidankana adigu maaragtay aad lug ku leedahay sidaan la socdo maaragtay arintaas marka waxaan ku iri aday madaxweyne arintaas waa airportka qaranka wuxuu suurtagalna maaha anaguna waxba dhula kama rabo maaragtay anigu ma aan rabo guriyahaygii horwaa ku yaalay ayaa nabadgelyo aan ku daga waayay marka waxba guri kama rabo anoo 23 sano jira aan dhistay marka waxba kama rabe madaxweyne waxaan ka rabaa dhulkaas dadka hadaad ka kicinaysid ka kici oo si dadku maaragtay aysan airportka abna u noqdo laakiin meel dad la siiyo ay mudan tahay maahan talahaan dalkiyaana maaragtay dawladnimadii iyo wax fara badan oo howlaha ku yaale yaa kugu mashquuliyo maaragtay arintaas ku galiyay markaas uu yiri warkaas iska daayay warkaan anaga ku leeyahay ta maqashid hawshaas fil kabacdi waxa igu xigay in la weeraray weerarkii markii la weeraray dadka niman ganacsataa la hadlay iskaga tagaa la yiri gobolada dhaxaan maaragtay iska aaday diyaarad u fuulay markaan halkaas tagay adigu wax fara badan oo jiray oo dhacay kan waramayo Axmed Daaci iyo ninkii Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo weerarkoodii iyo halkaas markuu weeraray ayakii oo inta soo xirxiray Axmed Daaci uu yiri haad u soo dhaweeyay ninkaas diin yimid ayaan idin weeraray oo wiisa idin kale idin ma jeedin oo ku yiri adigu dhibaato ma laha goboladii dhaxan tagay goboladii dhaxow haddana iga soo daba diray rag dagaalana ku soo qaaday nimankii sunna wal jamaa meesha joogay lugta la mariyay iyadoo muraadku uu yahay aniga in la dhibaateeyo kabacdi meeshii dagaal xuma ku dhacay dad far badan ku dhintay barakaca ka dhacay dhibaata meeshaas ka dhacday dhulkaas dhibaatada aan la saameyn maaragtay maanta la qiyaas karina ka dhacday kabacdi Nairobi aan booqasho ku aaday Nairobi markaan ku aaday ciidanka intelligence-ka Kenya uu Xasan Sheekh in persona la soo hadlay laag wuxuu la soo hadlay sidaan la socdo nin intelligence-ka Kenya madax u ahaa ayuu la soo hadlay oo ay gacan saar lahaayeen iyo wada shaqayn ninkii maaragtay soo qabtay lacag 300 kun oo qarash ayaa la rabaa oo ninkaas lagu soo qabto in la qaban kara maaha sida uu ku yiri oo kabacdi wiilasha ii sheegeen safaaraduna waa gashay hawshaas safaaradda iyagoo dhan iskaalmaystay wala soo qabtay xamar markii la igeeyeen wax dambiyo la igu hayo iyo wax la igu xiro marka uu qoway wuxuu yiri waxaan rabaa inaad dawladayda la shaqaydo dawladdu qof dambi uma weydo ama dambiga ku xoogaya ama aqbal inaad dawladda la shaqaydo hada waxaan iri wallahi hada dambi xoogaysa anigu dambi aan lahayn hada xoog adiga ku taala adiga niman ganacsadaha oo asaga saaxiibo yihiin iyo waxa la hadlay ma hado asaga gacan yara u ahaa oo wiilkiisa oo ahaa sida uu isagu ii sheegay markaas wiilkayga waa igu yiri markii aan u imidna wal ii keenayna booqashaan ugu imid asaga yiri hal ii keeno markii la ii keenayna anoo la fadhiyo telefoon wuxuu kula hadlayay niman chat lacago chat ku haystay oo laha 36 kun oo chatka ah iga taabanina hal ii daayo madaxweynihii qaranka oo chat wiilal ku haysta waan la yaabay waxa kale oo dhacday oo telefoonka markaas uu ku hadlayay waxaan kala hadlay waxaan iri warniyahu dalkii wad u jeedaa dhibaatada ka jirta nimankaas qaatumo oo goboladan reer waqooyiga oo dalkay ah maanta tamoonaha dalka isku hay nimankaas maad goboladooda aqoonsi u siidido maamul goboleed uga dhigtay markaas wuxuu ugu yiri daarood laban hadeer meelan u dhigala ahay mid kale oo saddexaad si samee aqal siyaasadeed oo ii sheegto maahan ugu yiri marka wallahi kelmadaas markuu yiri waan maartay aadan uga naxay waxaan ka naxay nin dhan oo madaxweynaha oo levelkaas aaminsan oo aragtidiisu taas tahay waa ila fool xumaa xarigayga wuxuu ugu fameeyay wuxuu ugu yiri waxyaalaha waxaad ugu xirtay ii sheegaan ugu yiri wuxuu yiri waxaan ku dirirayna waa taqaanay kabacdina goboladii dhexe dagaal maarkay aad ka abaabushay kabacdina waxaan aaminay dawladaydu inay saldhigeen hadeerna waxaan 100% hubaa inaan soo noqonayo
adigu markii waqti doorasho ku jiray 2016 ahayd 2016 waqti doorasho ku jiray wuxuu yiri waa soo noqonaya haddaan soo noqdana waxaan filayaa inaanan ammaanka helay waxaan rabaa marka inaan saaxiibno wada shaqayno ballanqaadkaas ila samee haddaan soo noqdo adigu markii wuxuu ii ballan qaaday markaan xaaqada idin sheego baabuur wuxuu yiri bullet proofan hala siiyo qoryo 20 hala siiyo gurina hala dajiyo waxaasuu yiri kabacdina sidaasaan siyaasaddanadii ku xumaad waxa kale soo haray waxyaalaha cajiibka igu noqotaa waxay tahay maantay hadeer maalin dhaweed waxaan dhageysanayay isagoo leh waxaana la ku weeraray hotel Mayda hoteeladii Axmed Daaciya la weeraray aniga la weeraray qof kasta la weeraray hadda qofka bil aadankaana waa qof Soomaaliya qof kastaba xuquuq qaranka ku leeyahay waxay kaga bedelan tahay male hadii ma la weeraray waa wax asaga uu sharciyeeyay oo ah qofku markuu asagu sharciyeeyo wixii uu sharci asagu ka dhigo haday shaqeeyaan waa inuu ku farxo marka anigu waxaan filaayay inuu yiraahdo dawladdu maartay waxay qabatay shaqo fiican oo ah wixii abni darra abuuray ka hortagay u sameeyay inuu yiraahdaan filayay inuu asagii waxaas abuuray yiraahdo mid kale waxyaalaha Soomaaliya sababaha mucjisooyinka ku dhacay waxa kamid ah nin madaxweynaha aqoon waxa qarannimadu tahay ayaan Soomaaliya hadaan iska doorano waxa kamid ahayd Xasan Sheekh dhulka Itoobiya haysato oo Soomaaliyeed inay sharci darro ku tahay inuu tago oo dhaanta ka dhaxdeelo jigjiga nin garta ma ahayn intaas uu garawaayay asagoo maaragtay inay sharciyeynayso dhulkaas in uu aqoonsaday in Itoobiya leedahay oo uu gobol Itoobiya kamid ah shaqo u tagay ayuu iska dhigay waana wax maaragtay dhaawac weyn maaragtay qarannimadii Soomaaliyeed oo dhan ku ah mid kale oo uu sameeyay asagoo nin islaam ah ayuu mayd Kenyaatiya oo dhintay u sajuuday ma fahamtay oo dad muslima madaxweyne u ah macnaha protocol ahaan macalmahan maydka looma sajuudo laakiin xurmo leeyahay oo haduu macal gaal yahay xurmada uu leeyahay waa in la duugo marka ma ahayn inuu u sajuudo wali haddana asagii oo dhulkii oo shalay aniga igu xiray inta sharciyeystay asaga Ali Sheekh waxa hadeer maalin dhaweed waxaan arkay maxkamadda oo Ali Sheekh taagan yahay oo u dacwoonayo dhulkii qaar lagu haysto oo dadkii ka fuqsanayo waxa ku soo haray airportka iribkiisa dhulkii oo dadka xooga uga qaaday ayuu inta dhistay ayuu hay'ad u samaystay airportka ka shaqeeyda oo asagii kullu leeyahay ilaa hadeer dhulkii airportka ku yaalay oo maanta airportku abni ma ahan hadii la yiraahdo maanta airportka waxaan dhihi karaa hadeer maanta in laga guuro inuu mudan yahaan dhihi karaa waayo airportka 500 tilaabo ayuu maaragtay ka yar konton tilaabo siligiisii ayaa guryo dabaqyaha ka dhisan yihiin qori saman hadii lala fuulo madax kasto timaada iyo qof kasto xushmad qarankan ka mudan meeshaas lagu diri karaa lagu dhibaatay karaa ninka ilaa heerka sameeyay oo asaga iyo dumarka uu qabay iyo walaalihiis dhulkii qaranka dhaceen ayaa wali Soomaali madaxweynenimo u dhax fadhiya oo raba inuu hadana inta madaxweyne noqdo wax kala sii boobo oo lagu sii qanacsanaado marka dhulkaas ay sababtu kaaga dhacay maxay islaaga kugu soo wada wallahi aniga sidaan u aaminsanahay dhulkaas inuu lacagaysto oo nin horta wuxuu ahaa Xasan nin markii hesii hore aniga waa aqaanay islaantiisu shidaal ay ku gadi jirtay xaafadda Madiina Axmed Daaciga uu xirayaa u ahaa jiray maaragtay gabaad u ahaa jiray oo maaragtay asaga deegaanku markuu dalku barakacay reeraha Stronghold waxa la yiraahdaa meesha awoodaha reeraha awood deegaamada ku leh reerkiisu kamid ma ahayno dad iska dadka ku firirsan oo iska tolaho waxay ahaayeen dadka ku dhex jira kaaraan markii la yiraahdo Daawudku Stronghold ay lahaayeen Warsangeligu Stronghold ay lahaayeen agoonyarku Stronghold ay lahaayeen wacisluhu Stronghold ay lahaayeen oo macallin dhiblaawo laakiin asaga reerki hoose oo isagu leeyahay Stronghold sidaan ku aqaan dadka ilaa qabaa'ilka waa kala aqaana Soomaaliyeed ma lahayn marka sidaas wuxuu ahaa nin meeshii asaga uu markaas gabaad ka dhiga karo ku nool waayo sabaha keentay inuu samaad wuxuu deganaa Xasan Sheekh isbartiibada horteedu samid guri uga kireeyay waxa dajiyay
ninkii la yidhaahdo terson ayaa dejiyey iyadoo lagala soo cararay dagaal ahliyahoo isku dhaca ta baabur lagu soo qaxiyey ayaa meesha uu deganaa jiray meeshaasuu sameed macallimiinteeda iyo howlwadeenadeeda ka mid ahaa faarax cabdulqaadirka maaragta uu haddeer saaxiibka leeyahay ayaa geed fadha u ahaa badankooda iyakoo badan oo hay-addii african muslim agencies gacanta maaragta ku haystay ayaa hay-adaasaa markaasaa la abuuray waxaan daam jadiidka iyo daam qadiimku waa isku jireen waxay alaslaaxay ahaayeen oo la dhihi jiray kabacdii alaslaaxay kala jabeen daam qadiimku waxay soo dhiseen cabdiqaasim kuwaan cabdiqaasim markay yimaadeen waxaa loo diiday siyaasaddii ay cabdiqaasim ka waayeen saamigoodii markay ka waayeen daam jadiiday la baxeen kuwii daam qadiimka la baxay waxaa hoggaan u ahaa nin la dhihi jiray abuukar la yaqaano iyo wadaad kaleoo iyo waxaa ka mid ahaa ninkan la yidhaahdo daam qadiimka waxaa ka mid ahaa ninkan issharixi jira oo kornaylka ahaa oo baadiyow raggaasaa ka mid ahaa raggii daam qadiimka ahaa sidii haddee rajay leeyihiinoo siyaasaddii waa weli waa googoobaan waxbay raaraadsaan daam jadiidkuna maray ku guulaysteenoo cabdiqaasinna markay soo dhiseen waa ka xariir furto hadde sidii xasan sheekh iyo loo hagaayay dadka qaarkiis loo hagaayay cabdiqaasin waa diiday in la hago wuxuu yidhi haddaad isoo dhisteen soomaaliyaad iila simantihiin halkaasay ku kala boodeen ninkii uu igu reebay ayaa yidhi madaxweynuhu intaasuu codsaday gurigaasna in lagu dejiyo markaasaan ku idhi gurina ma degayo anaga gobollada dhexaan aadaya